dagaalkii labaad ee dunida guuldarradii qadhaadhay shantii iyo barkii subaxnimo 10kii bishii January sanadkii 1940 ayay ahayd markii ciidamada Jarmalku ay bilaabeen duulaankii ay ku qaadeen dalka Faransiiska. ciidamada baarashuudka ku booday dalka Jarmalku waxay ku soo daateen ciidda dalka Holland, waxaana markiiba dagaal galay 1 milyan oo askari oo ka mid ahaa 3 milyan ee askarta Jarmalka ahaa ee weerarka qaaday, kuwaasoo dhaqaaqooda looga dan lahaa in lagu majara habaabiyo saraakiisha sare ee ciidamada Faransiiska oo aan fahmin khiyaamadii Hitler u sameeyey kaartadiisa dagaalka, iyagoo saraakiisha Faransiisku u qaateen ciidamada Jarmalku ku soo jihaysan yihiin dhanka dalka Belgiumka si ay docda uga weeraraan dalka Faransiiska sidii ay horeba u sameeyeen sanadkii 1914. taasi waxay keentay in General Gamelin oo hogaaminayay ciidanka Faransiisku uu dejiyo kaarto uu kaga hortagayo ciidamada Jarmalka ee weerarka soo General Gamelin reer Faransa waxa uu cududii u weyneed ciidamadii uu haystay oo ay wehelinayeen ciidankii Ingiriiska ee Faransiiska joogay u dhaqaajiyay dhanka dalka Belgiumka si uu uga hortago ciidanka Jarmalka ka hor inta aanay xuduudda Faransiiska soo gaarin. Adolf Hitler waxa uu xilligaa aad ula dhacay sida ay ugu guulaysatay kaartadiisii military ee khiyaamada ahayd, waxaana uu raggii kalkaaliyeyaashiisa ahaa u sheegay inuu u dhow yahay inuu farxad darteed iska ooyo. xilligaana Adolf Hitler waxa uu amar ku siiyey taliyihiisa ciidanka cirka inaan la duqaynin kolonyada ciidamada Faransiiska ee dhanka dalka Belgiumka ku soo wajahan si ay u suura gasho in la dabamarteeyo oo dhabarka laga weeraro. kaasina waxa uu ahaa weerarkii dhabta ahaa ee uu Adolf Hitler ku qaaday dalka Faransiiska. haba yaraatee ma jirin wax difaaca oo ay la kulmeen ciidankii Jarmalka ee weerarka qaaday, mana jirin wax cidhiidh ah oo ay dareemayeen marka laga reebay inay isxannibeen gaadiidka faraha badan ee ay wateen. dadweynihii Faransiiska iyo kuwii reer Holland xilligaa waxay bilaabeen inay ka cararaan colaadda ku soo fool leh, waxaana dadweynahaasi si weyn uga baqayeen xoogaga loogu magac daray safka shanaad oo ah sirdoonkii Jarmalka ee sida qarsoodiga ugu sugnaa dalweynaha Faransiiska. ciidamada Jarmalku waxay sii wadeen duulaankoodii dhanka cirka oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada baarashuudka ku booda iyo ciidamo kale oo isla dhanka cirka ah oo si gaar ah u tababaran. ujeeddada ciidamadaasi waxay ahaayeen qabashada kanaal biyoodka Arbel ee dalka Belgium, kaasoo u muuqday difaaca keliya ee ka xiga magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. tallaabada military ee ay xilliga kooban ciidamada Jarmalku gacanta ugu dhigeen kanaal biyoodkaasi waxay muujisay in ciidamada Jarmalku yihiin quwad ay adag tahay in la iska joojiyo. gelitaanka ciidamada Jarmalku ay gudaha u galeen magaalada Lech waxaa ka dhashay warwar iyo cabsi dheeraad. dadweynihii Faransiiska ay ciidamada Jarmalku qabsadeen magaalooyinkoodii waxaa xilligaa u taalay laba midkood: waa inay isdhiibaan ama ay cagaha wax ka dayaan oo cararaan. tiro badan oo dadweynihii deegaanadaasi ahaa ayaa bilaabay nolol barakaca, iyagoo beeralaydu ahaayeen kuwii ugu dambeeyey halkaasi ka ambabaxa kadib markii ay muddo ka hagaagi waayeen beerahoodii iyo xoolahoodii ay dhaqanayeen. xilligaa gabyaagii caanka ah ee u dhashay dalka Belgiumka Mr. Emil Farhan ayaa xilligaa sifeeyey xaaladii adkayd ee bulshadaasi ku sugnayd. dadku halkan haba yaraatee waxba kuma haystaan, halkay ku socdaanna waxba uma yaalaan marka laga reebo jid dheer oo madhan oo ay sii mari doonaan. jidkaasi oo aan iyaga u lahayn bar uu ku dhammaado, runtiina waxay ku jiraan dhibaato aanay hore ula kulmin. weerarka dhanka cirka ay Jarmalku ku qaadeen dalka Faransiiska waxay ku burburiyeen oo ku baabi'iyeen kaabayaashii nolosha sida wadooyinkii muhiimka ahaa, garoomadii diyaaradaha, warshadihii sifaynta batroolka iyo haamihii kaydka shidaalka. inta badan waxaa la duqeeyey magaalooyinka Faransiiska ku yaalay waqooyiga iyo bariga waddankaasi. xilligaana Faransiisku waxay dhab ahaan u waajaheen dagaal ka mid ah kuwa ugu casirsan.
dhanka dalka Holland ciidamadii Jarmalku waxay duulaankoodii ku gubeen magaalada Rotterdam taasoo loo duqeeyay sidii magaaladii Warsaw oo kale inkastoo duqeyntii qumbuladaha goor dambe la joojiyay kadib markii ay isdhibtay magaalada Rotterdam waxaana lagu sheegaa in duqeyntii magaaladaasi ahayd mid ka mid ah dambiyadii dagaal ee ay galeen Hitler iyo ragiiso dhanka magaalada London halka waxa ahaa ra'iisul wasaarihii cusbaa ee Britain Winston Churchill waxaana khudbadiisii u horeysay ee xilliga u jeediyay caalamka uu ku xusay inay lama huraan tahay in colaadda la sii wado duruuf kasta oo taagan shaki la'aan waxaanu leenahay waxa ku dhacay Belgium iyo Holland waxba kagama duwana wixii ay la kulmeen dalalka Poland iyo Czechoslovakia arrintuuse waxay u muuqatay mid maalinba taxigto ku sii xumaanaysay dalka Faransiiska muddo 3 maalmood oo kaliya ciidamada Jarmalku waxay ka tallaabeen xuduudda dalka Faransa ciidamada Jarmalku waxa uu suura gashay inay daba maraan ciidamada xulafada ee isku urursanayay ciidda dalka Belgiumka inkastoo ay iska horimaad kala kulmeen ciidamo Faransiis oo ku sugnaa tuulada Sedan goor dambe si ciidamada Jarmalka ee duulaanka ah oo adeegsanayay bombooyinka gacmaha laga turo iyo boobayaasha culus waxa uu suura gashay inay jibiyaan ciidankii Faransiiska ee halka difaaca kaga jiray webiga Nees ee halka ku yaala ayaa ahaa caqabadaha kaliya ee hortaagneen ciidamada Jarmalka waxaana xilli habeennimo ah ay bilaabeen inay adeegsadaan geedaha looxa laga sameeyo oo halka ku badnaa si ay webiga uga tallaabaan laakiin waxay duqeyn dhanka madaafiicda kala kulmayeen ciidan yar oo Faransiis ah subaxnimadii ku xigtay ciidamada Jarmalka waxa uu suura gashay inay ka takhalusaan ciidankii Faransiiska ee webiga dhankiisa kale difaaca kaga jiray waxayna si rasmi ah uga tallaabeen webigaasi iyagoo adeegsanaya kaartada ciidan ee uu dejiyay General Guderian kaartadaas oo qayb ka mid ah lagu qorayo biriijkii halka ka dumi General Guderian oo lagu tiriyo saraakiishii dagaalka khibradda u lahaa ciidamada Jarmalka waxa uu aaminsanaa ku dagaalanka xuduudda taangiyada iyadoo duqeynta madaafiicda harka lagaga dhigayo goobaha cadawga difaaca kaga jiro isla markaana Jarmalku waxa uu ka taxadarayay in ciidamada Faransiisku fursad ka helaan duulaanka degdega ee ay Jarmalku ku daba martayeen ciidamadii xulafada ee ku sugnaa dalka Belgium taangiyada ciidamada Jarmalka oo ay daba socdaan guutooyinka ciidanka lugtu dushana ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalku ayaa ka gudbay biriijkii webiga Nees diyaaradaha dagaalka ee Stuka oo duulaanka ka qayb qaadanaya waxay ahaayeen diyaaradaha waaweyn ee xambaara gantaalaha kuwaas oo ku rakibnaa qalabka bixiya digniinta degdega duuliyaashii tababarnaa ee diyaaradahaasi duulinayay waxay bilaabeen inay sameeyaan duqeyn culus oo lala eeganayo aagaga lagu toonsan yahay ciidamo Faransiis xilligaana ra'iisul wasaarihii Faransiisku Paulo Dreiner waxa uu waraaq u diray ra'iisul wasaarihii Britain Winston Churchill isagoo u sheegay in dagaalka lagu jabiyay khasaare ballaaran soo gaaray dalka Faransiiska iyadoo jananadii hogaaminaya ciidamada Faransiisku ay u muuqdeen kuwa aan hayn wax qorshe ah oo dagaal oo lagaga hortagi karo ciidanka Jarmalka ama ugu yaraan lagu hakan karo duulaankood iyadoo cududii ciidamada xulafaduna ay ku go'doonsanaayeen gudaha dalka Belgium guuldaradii xilliga gaadhay ciidankii Faransiiska waxay ka dhalatay hadalhayn ku saabsan inuu isdeldelay janankii ciidanka Faransiiska General Gamelin laakiin jaranka oo ka dherigsanaa in ciidamada Jarmalku ay beegsanayeen dhanka xeebta waxa uu dejiyay qorshe ay ciidamo kale oo Faransiis iyo dhabarka kaga soo weerarayaan si ay u jabiyaan go'doonka lagu hayo cududii ciidanka xulafada Britain iyo Faransiiska ee ku sugnaa dalka Belgium 1940 Colonel de Gaulle oo taliye ka ahaa qayb ciidan oo Faransiis ah ayaa u xilsaarnaa inuu bixiyo fulinta kaartadaas iyadoo taangiyada Faransiisku haysteen ay ka tayo wanaagsanayeen taangiyada Jarmalka ee noocoodu ahaa Panzer laakiin markii ay taangiyada Faransiisku waayeen wax taakula ciidan oo soo gaadha iyo taageero dhinaca cirka atoonna waxay noqdeen kuwo ay si fudud u ugaarsanayeen diyaaradihii dagaalka ee Jarmalku inkastoo ciidamadii Faransiisku ay ku dagaalameen taangiyadooda haddana ugu dambeyntii waa la jabiyay iyadoo goor dambe diyaaradihii yaraa ciidamada Faransiisku wateen ay dagaal foolka fool hawada kula galayeen diyaaradihii Jarmalka xilligaana waxa la qabtay tiro ka mid ah duuliyaashii Jarmalka ah
تحركت الدبابات الألمانية بسرعة في ciidamada Jarmalku waxay soo gaareen kanaalka badeed ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Britain waxaana u muuqatay inay kaartadii Adolf Hitler xilligaa guuleystay iyadoo ay ciidamada Jarmalku hareereeyeen oo isku gadaameen fariisinkii ugu dambeeyay ciidamada xulafadu ku lahaayeen dalka Belgiumka halkaas oo ay fadhiyeen ciidamada Faransiiska Britain iyo Belgium 28 bishii May 1940 waxa isdhibay boqorkii dalka Belgiumka iyo ciidankiisii waxaana dib uga baxay halkaasi ciidankii Britain ee xulafada ka mid ah si ay Faransiisku u soo nooleeyaan kalsoonidii ciidankooda waxa la casilay General Gamelin waxaana hoggaanka howlgelinta loo magacaabay General Philippe Pétain oo bilada geesinimada hore uga qaatay dagaalweynihii koowaad ee adduunka laakiin maadaama aanu haysan waqti ku filan waxa ciidankaasi lagu qasbay inay dib uga baxaan aagagii ay fadhiyeen ugu yaraan 400 oo kun oo askartii xulafada ayaa ku go'doomay deegaanada ku teedsan xeebta mana jirin fursad kale oo hortooda taalay oo aan ka ahayn inay badda isku shubaan bishii May 1940 ra'iisul wasaarihii Britain Winston Churchill waxa uu amray in qiimo kasta oo ay ku kacdaba maraakiib loo diro ciidanka si loo badbaadiyo laakiin nasiib darradii haleesho waxay ahayd markii diyaaradaha Jarmalku duqeyn ku baabi'iyeen maraakiibtii doonaysay inay ciidanka go'doosan soo daadgureeyaan qiyaastii 210 kun oo askartii Ingiriiska iyo 150 kun oo ciidamadii Faransiiska ayaa goor dambe laga soo badbaadiyay halkaas bishii Juun 4 sanadkii 1940 ciidankii Jarmalku waxay qabsadeen magaaladii Danka colaaddu waxay ahayd mid sii socota Faransiiskuna waxay ahaayeen kuwo sii dumaya militari ahaan iyo cudud ahaanba General Charles de Gaulle oo xilliga madax ka ahaa wasaaradda dagaalku waxa uu go'aansaday in dagaalka la sii wado 10 bishii Juun 1940 magaalada Rome Majaxanjixe Benito Mussolini oo hogaaminayay dalka Talyaanigu waxa uu ku dhawaaqay inuu dagaalka ku biiray waxaan u gudbiyay ku dhawaaqayga dagaalka safiirka Ingiriiska iyo Faransiiska Mussolini waxa uu hilaacday qaybtii uu ka yeelan lahaa bilaqaysiga lagu hayo dalweynaha Faransiiska isagoo iska qoontaystay magaalooyin ay ka mid ahaayeen Wadi-on iyo Marsilia isla markaana hubka ka dhigay dabley reer Tunis oo Faransiiska la halmaasho talaabada uu Talyaanigu qaadayna waxay Faransiiska ku macneeyeen inay tahay dhabar jabin cusub oo ciidankooda ku dhacday batalyankii ka tirsanaa ciidanka Faransiiska oo ka soo guuray buuraleyda Alab ayaa isku biimeeyay inay ka hortagaan weerarkii Benito Mussolini xilli ay aaga dagaalka ee dhankii waqooyi ay ciidamadii Jarmalka ee hogaaminayay General Rommel ay duqeynayeen mandaqada Normand gudahana u galeen halkaas xilligan waxaa muuqanaysay in magaalada Paris ay tahay mid u furan ciidanka Jarmalka waxaana si rasmi ah maamulayaashoodu ugu dhawaaqeen in nabadgelyo ay isu dhibtay caasimadii Faransiisku si looga fogaado inay la kulanto wax la mid ah duqeyntii iyo burburintii ay ciidamada Jarmalku u geysteen magaalooyinkii Warsaw iyo Rotterdam oo xarumo u ah dalalka Poland iyo Netherlands xukuumadda Faransiisku waxay u guurtay magaalada Bordeaux ciidankii Jarmalkuna waxay ku sii dhawaanayeen magaalada Paris dadweynihii Faransiiska ee deganaa magaalada Paris oo la baqaya hablahooda waxay bilaabeen inay ka qaxaan guryahoodii iyagoo dhammaan banaanka u soo baxay si ay si wada jir ugu bilaabaan socdaalkoodii markii dambe loogu magac daray safarkii bixitaanka iyadoo haweenkii iyo dadkii socon kari waayay ay isku dayeen inay gabaad ka dhigtaan dhulkii beer cawseedka ah ee duleedka Paris laakiin halkaasi ma noqon meel gabaad uga noqoto ay kaga nabad galaan diyaaradihii dagaalka ee Jarmalka waxay ahayd maalintii ugu horeysay calankii xisbigii naasiga laga taago magaalada Paris oo uu ka dulbabado waxyaabihii ay markiiba ku dhaqaaqeen ciidankii Jarmalka ee Paris qabsaday waxaa ka mid ahaa inay dhismayaashii wasaaradaha ee la cileeyay ka baaraan warbixinihii dhanka sirdoonka iyo magacyadii basaasiinta Faransiiska ee ku sugnaa gudaha dalka Jarmalka halka sidoo kalena ay si gaar ah u bartilmaameedsadeen dukumentigii originalka ah ee ku qornaa heshiiskii Versailles oo lagu bahdilay Jarmalka sanadkii 1914 dukumentigaas oo ugu dambeyntii loo diray Adolf Hitler
xilligaana hoggaankii baxsadka ah ee faransiisku waxay ku tala jireen inay guud ahaanba joojiyaan dagaalka. ciidamadii Jarmalku waxay u sii wadeen duulaankoodii dhanka koonfureed. ciidamadii Faransiiskuna xilligaa waxay u muuqday mid burburay inkastoo uu sameeyey wax iska caabin aan sahlanayn, iyadoo ay muddo bil gudaheeda ay dhinteen in ka badan 100 kun oo askartii Faransiiska. maxaabiista ciidanka Faransiiska ee la qabtay waxaa qayb ka ahaa askartii Afrikaanka ahayd ee laga ciidameeyey mustacmaradii Faransiisku gumaysan jiray. xilligaana ciidamada Jarmalku waxay dileen ugu yaraan 3 kun oo askari oo ka mid ah ciidankii Afrikaanarka ahaa ee Faransiiska u dagaalamayay ee maxaabiis ahaanta loo qabtay. 3 go'aan oo taariikhi ah oo xilliga ay qaadeen Faransiisku waxay xadideen masiirkii dalkaasi. bishii Juun sanadkii 1940 golihii xukuumadda ee Faransiiska magaalada Bordeaux ku shaqeynayay waxay ra'iisul wasaare cusub u magacaabeen Philippe Pétain si uu u hogaamiyo xukuumad cusub. ra'iisul wasaaraha cusub oo ka mid ahaa dagaalyahanadii hore ee Faransiiska ee galay dagaalkii Vietnam waxa uu khudbad u jeediyey shacabka Faransiiska waxaana uu Jarmalka ka dalbaday xabad joojin. waxaan ka dalbaday cadowga inay joojiyaan cadaawadda. go'aankan waxaan qaatay anigoo ka dharagsan inuu dhaawacayo qulubta askarteenna, laakiin xaaladda militari ee taagan ayaa sidaa dalbanaysa. Jarmalka dhankoodu waxay ku macneeyeen hadalka ra'iisul wasaaraha Faransiisku inuu yahay mid uu ku dhawaaqayo inuu isdhiibay. dhankiisana General de Gaulle reer Faransa waxa uu soo gaaray magaalada London waxaana uu dhaleeceeyay xabad joojinta uu ra'iisul wasaarahoodu ku dhawaaqay waxaana uu khudbad u diray shacbi weynaha Faransiiska. waxaan aaminsanahay in sharafta Faransiisku ku jirto in dagaalka la sii wado inagoo la soconna xulufadeenna. bishii Juun sanadkii 1940 Adolf Hitler waxa uu soo gaaray magaalada Paris isagoo u gudbay tuulada Cambe ee duleedka caasimadda ku taal halka uu yaalay haraagii tareenka ee lagu saxeexay heshiiskii xabad joojinta ee dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1918. heshiiska uu dhigayay in la jabiyay dowladda Jarmalka. xilliga Adolf Hitler ahaa askartii Jarmalka ee dagaalkii koowaad lagu jabiyay. socdaalka Adolf Hitler ee mandaqadaasina waxa uu muuqday mid uu ku xaqiijinayo argoosi uu hirgalay dalkiisa. wafdiga Faransiiska halka kula kulmay Adolf Hitler waxa hogaaminayay General Kissinger. inkastoo kulanka lagu eedeeyay Faransiiska in iyagu mas'uul ka ahaayeen bilowgii dagaalka, haddana Adolf Hitler munaasabadda kama hadlin. xilli yar kadib markii ay bilaabantayna waxa uu ka baxay goobtii kulanka. saanadii militari ay Jarmalku ka qabsadeen Faransiiska waxaa ka mid ahaa 2,000 oo taangiyada dagaalka, 5,000 oo madaafiicda goobta, 300 oo kun oo qoryaha fududa iyo ilaa 4 milyan oo xabadood oo rasaas. iyadoo ciidanka Jarmalku ay mid ka mid ah bakhaarradii keydka ee ciidamada Faransiiska ka heleen kayd ballaaran oo dharka hoose ee ciidamada ah kaasoo ay ugu talagaleen dagaalada mustaqbalka gaar ahaan xilli qaboobaha. intaa kadibna General Kissinger oo Faransiiska u qaabilsan wada hadallada iyo wafdi uu horkacaya waxay gaadheen magaalada Berlin oo ahayd xaruntii Jarmalka, waxaana kulankoodii u horreeyay yeeshay gudiyadii labada dhinac ee qaabilsanaa hirgelintii heshiiska xabad joojinta. Adolf Hitler oo doonayay inuu xafido nolosha ciidanka waxa uu xilligaa u ogolaaday Faransiisku inay kala qaybiyaan dhulkooda oo qayb ka mid ah ka dhistaan dawlad ay ciidanka Jarmalku dusha ka ilaaliyaan. dhanka waqooyi ee dhulweynaha Faransiiska oo ku dhararay xeebaha badda Atlantika waxaa laga dhigay goob ay Jarmalku haystaan, halka qaybtii labaad ee dhanka koonfureedna laga yigleelay xukuumad matasha Faransiiska oo ay caasimadeedu tahay Fiji. xukuumaddii Fiji ee la dhisay qayb ka mid ah dhulkii Faransiisku waxay xilligaasi maamuleysay mustacmaradii daafaha caalamka ee ay gumaysan jireen Faransiisku. sidoo kalena waxay gacanta ku sii haysay raxan fara badan oo maraakiibta dagaalka ah kuwaasoo ku sugnaa meelo ka fog dalka Faransiiska. Jarmalku xilligaa waxay xukuumaddii Fiji ee Faransiiska ka dalbanayeen in saanada ciidamada badda ee dibadda ku sugan la tirtiro. dhankiisana ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Winston Churchill oo ka warwarsanaa in maraakiibta dagaalka ee Faransiisku gacanta u galaan Jarmalka waxa uu ku amray ciidamada badda ee boqortooyada inay dusha kala socdaan, iyadoo raxan ka tirsan maraakiibta dagaalka Ingiriisku gaareen dekedda weyn ee magaalada Algiers ee dalka Algeria oo ku yaalay mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ciidamadii badda ee Faransiisku.
waxaana ay ka dalbadeen inay iyaga ku soo biiraan laakiin ciidamadii faransiiska ee saldhiggaa ku sugnaa waxay diideen dalabkii ciidamada ingiriiska taasina waxay keentay inay maraakiibta dagaalka ee britain duqayn ku bilaabaan saldhiggaas duqayntaasi waxaa lagu dejiyey mid ka mid a maraakiibtii dagaalka ee faransiiska ee aljeeriya ku sugnaa waxaana waxyeello culsi soo gaadhay 2 markab oo kale xilli halkaa lagu dilay ugu yaraan 1300 oo askari oo ah badmaaxiintii faransiiska ee maraakiibtaasi saarnaa 2 maalmood ka bacdi duqayntaas xukuumaddii Fiji ee faransiiska ee Jarmalku dusha ka ilaalinayeen waxay xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay boqortooyada ingiriiska bishii Juulaay 1940 guud ahaan dalka Jarmalka waxaa ka qabsoomay isu soo baxyo lagu weyneynayo Adolf Hitler waxaana guushii dagaal ee uu ka soo hoyay duulaankii lagu qaaday faransiiska ay Adolf Hitler xilligaa ka dhigtay mid aan lahayn cid mucaarad ku noqota siyaasadda uu Jarmalka ku hogaaminayo dagaalku samaahay mid sidaa ku dhamaaday